بسم الله الرحمن الرحيم runtii marka koowaad waxaan soo dhaweynaynaa garsooraha caalamiga ah walaalkeen Cumar Cabdulqaadir Cartan waxaan ku soo dhaweynaynaa dalkiisii waxaan u soo dhaweynaynaa sharafta iyo karaamada iyo calanka Soomaaliya inuu xambaarsanaa oo uu xambaaray inuu fagaarayaasha caalamka iyo caalamka tusiyo awoodda dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin awoodda sportiga Soomaaliya uu leeyahay awoodda garsoorayaasha Soomaaliya ay leeyihiin uma soo dhaweynayno sidii nin caadi ah qof caadi ah oo safar ka yimid laakiin waxaan soo dhaweynaynaa nin iyo astaan ka mid ah astaamaha qof dadaalay guulaystay isi soo saaray meel weyn dalkiisa ka gaaray meel weyn regionka Soomaaliya ku nooshahay ka gaaray meel weyn qaaradda Afrika ka gaaray kadibna loo xushay inuu qayb ka noqdo ciyaaraha adduunka oo ah ciyaaraha adduunka ugu ballaaran ee la daawado 3.5 bilyan oo qof ayaa daawata la yiraahdaa ciyaaraha kubadda cagta waa ciyaaraha ugu badan oo dunida la daawado runtii wuxuu u jirsaday Cumar tallaabooyin inuu riyadiisii ahayd inuu garsooro ciyaarahaas waaweyn oo magaca Soomaaliya ku matalo qaaradda Afrika ku matalo tallaabooyin buu jirsaday caqabado ayaa soo waajahay aan rajaynayno inaysan mustaqbalka sii socon waxaan ka xunnahay oo aad uga xunnahay in Cumar laga hor istaago oo caqabad loo dhigo oo inuu ku socdo hadafkii loo soo xulay ciyaaraha adduunkuna siyaasad maahan waa wax adduunka oo dhan looga farxiyo waa wax dadka adduunka oo dhan ku xiran yihiin waa xadath weyn oo dhacdo weyn oo caalami ah ayay yihiin marka runtii aad baan uga xunnahay siday ugu xumaadeen dad badan oo adduunka jooga sababtoo tahay Soomaaliya in laga takooro ama Cumar in laga takooro garsoorayaashiisii kale xaq uma lahayn dawladda Soomaaliya xaq uma lahayn in laga hor istaago in fiisii waa la siiyay dawladda Mareykanka way siisay waa uga mahadcelinaynaa safaaradda Nairobi waa caqabadii halkaas kama jirin sida garsoorayaasha kale loo sameeyo kale laakiin meeshii uu ka galayay baa caqabad yar kala kulantay taas wuxuu qaadan doonaa awood waxaan u qaadan doonaa insha Allah tacaala dariiq weyn iyo wado weyn inay u furmatay Cumar adduunkii oo dhan baa garab istaagay waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Turkiga oo runtii soo dhaweysay Cumar markuu soo noqday Mareykanka oo si walaaltinimo dalkooda ugu soo dhaweysay haddana ka yimid waxaan u mahadcelinaynaa FIFA oo runtii dadaal xoogan muujisay sida ka muuqatay qoraaladooda ama xiriirka ay soo sameeyeen waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed Afrika oo dhan madaxdii intii ka hadashay iyo caalamkaba waxaan u mahadcelinaynaa dawladda Canada oo iyaduna casuumaad siisay inkastoo ay xilli dambe tahay waan u mahadcelinaynaa in qof kastoo la saftay oo la duubtay xaaladda Cumar waa ka mahadcelinaynaa ama adduunka ama shacabka Soomaaliyeed Cumar marka soo dhawow dawladda Soomaaliyana runtii Cumar meel weyn buu magaceeda iyo magaca Soomaaliya gaarsiiyay dawladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in Cumar iyo ragga la midka ah iyo gabdhaha la midka ah ee sportska ku jira inay garab istaagto tabantaabto qisadooda najaax ee guusha inay qayb dawladda Soomaaliya ka noqoto in wixii hadda ka dambeeyana dawladda Soomaaliya wasiirkan ku hadli doona magaca sportskeenu meel fiican buu gaaray Cumar tusaale fiican buu u yahay dhalinyarada sportska ay soo baxaysa inaan meel fiican horay uga sii soconno dhalinyaraduna inaysan u qaadan iyo dadka Soomaaliyeed inaysan u qaadan arrinta Cumar ku dhacday waa hal case oo waqti kooban dhacay taasi marka qof walba dadaalkiisa inuu sii laabo ayaan ku baraarujinaynaa Cumar soo dhawow waa mahadsantahay waxaan rajaynaynaa